qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen nin watay gaari kuwa raaxada ah oo markaasi ay ku dhex jireen laba cunug oo meyd ah kuwaasi oo la sheegay in gaariga uu ku dhex watay ninka. ciidamada amniga ayaa ninkaani ku qabtay agagaarka isbitaalka Ordigan ee Kasdigfer waxayna ciidamada sheegeen in xogta ninkaasi ay soo gudbiyeen dadka deegaanka. booliiska ayaa sheegay in ciidamada ay baaritaano ku wadaan ninkaani oo la xiriirta dhacdada isagoona la sheegay in gaariga labadaasi cunug uu ku dhex watay oo meyd ah. sidoo kale booliiska ayaa sheegay in cadaaladda la horgeyn doono isla markaana ay hay-adaha baarista haatan ay wadaan sidii ninkaasi cadaaladda loo horgeyn lahaa. dhinaca kale ciidamada booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin lagu eedeeyay inuu dil hore u geystay kaasi oo ciidamada amniga ku daba joogeen in muddo ah. ciidamada amniga ayaa ninkaani ka qabtay deegaanka Gubadley